munaasabadan ciyaaraha oo ay soo bandhigeen dhalinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan magaalada tan London isla markaana ay soo qaban qaabiyeen Somali International Youth Development ayaa waxa lagu maamusay sanadguuradii 6aad ee ka soo wareegatay telefishinka qaranka Soomaaliyeed markii dib loo howlgeliyay munaasabadan ciyaaraha ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay ciyaartoy hore ee ka tirsanaan jiray xulkii qaranka Soomaaliyeed iyo dadweyne aad u fara badan horta waa salaamaya odayaasha ama ragga qaban qaabadan ciyaaraha dhalinyaradan intaas la eg maanta u keenay waana midaan ku faraxsanahay sababtoo ah maanta maadaama caruurihii ay u baadan yihiin badbaado mid ay u baahan yihiin ay tahay yani ciyaarahan waxa waa ciyaaro isdhaxgala ciyaaro yar-yarkoodaas ayagoo mid ay isbartaan inay noqonayso. So everyone keep up the good spirits, keep up the good work. Remember teamwork is the key, and congratulations to Somali TV on your anniversary. Congratulations, well done. Thank you very much. A lot of good teamwork. I think it reflects some of the Met Police values here today of teamwork and dedication and fair play as well, especially. So, yeah, very good. Congratulations to all, and for good luck on the anniversary of Somali TV today for their anniversary. Thank you. marka dhamaantiina waxaan idin codsanaynaa caruurta hadaan la taageerin hadaan laga joojinin oo ciyaarahan oo kale loo qabanin waxay noqonaysaa hadhoodii in ilmihii wadooyinka iyo meelaha istaagaan dhalinyaradan yaryar oo waliba maaragtay ciyaaraha ay qaban qaabinayaan ay dhigayaan mana aha markii ugu horeysay reer Wembley hadaan nahay Redstone Bridge inaan dhalinyaradan oo kale u dhigno waxa yeelay mar walba iskoolka la xiray ciyaalka waa chance ayaan siinaa maadaama waqtigooda uu ku jiro waxaan maleynaa wixii la dhiraay waa la dhahay walaalkii iga weyn Axmed Nuur sayga ruushka ayaa yiri marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii inaan ka soo qayb galo xafladan amba tournamentigan loo qabanayo ilmaha runtii aad iyo aad boqolkiiba boqol lama soo koobi karo farxadeyda dantoo loo wada jiriyo dadaalkuna waa horseed hortaas yani hadda isku duuban tahay waxa lagu sii farxo marka isboortiga maaragtay aniga aad u jecelahay alxamdulillah farxad weyn ay tahay waxaan kala u hambaleynayaa TV-ga qaranka waxaan leeyahay hawsha awoodiin waa hawl aad u fiican bulshadana waxay u baahan tahay in sidaan kale loo dhiirigeliyo ilmaha hadii la dhiirigeliyo adinkana ay maatiino ay banaanka imaadaan wixii ilmahan inay jidadka taagnaado criminal noqdaan ilmahayna way ka badbaadayaan waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa ilaahay maanta inta oo dhalinyaro isku keenay meeshan aad soo jeedo aad u wada ciyaaraya oo runtii faraxsan muhiimadda ugu weyn maanta isku mid waxay inaan u mahadcelino TV-geena qaranka Soomaaliyeed oo maanta ahayd sanadguuradiisii oo sanadkii 6aad ah in dhalinyarada isku keeno oo Soomaalinimadooda soo celiyo isbartaan oo ku fiican oo dibadaha la geeyo insha Allah waxaan jeclaanahay inaan dawladda Soomaaliyeed u sheego inaan dadkan oo dibadda jooga ay rabaan in Soomaaliya imaadaan runtii Sntv waa u hambalyeynaa in sanadguuradooda marka labaad Somali International Youth Development oo director-ka Xuseen Maxamed Xaashi runtii waxyaalaha uu qabto waxyaalaha runtii aad iyo aad muhiim ah oo la taaban karo oo runtii intaan oo ciyaal ee aad aragteen maanta Soomaali ah in meeshaan la soo keeno munaasabada markay soo idlaatay ayaa halkaasi waxa koobkii lagu talagalay ku guddoonsiiyay kooxdii guuleysatay agaasimaha waaxda telefishinka qaranka xarunta uu ku leeyahay magaalada London Faadimo Faande alxamdulillah ilaahay ay mahad u sugnaatay noo suurta geliyay anagoo qurba joogno in aan gudoono hadiyad loogu talagalay telefishinka qaranka sanadguuradiisa ee dhalinyaro yar oo Soomaali ah iyo waliba saaxiibadooda magaalada la degan ee ajnabiga ay banooni la dheelayeen ay kooxo badan ku tartameen sanad kastana la sameeyay laakiin sanadkan si gooniya loogu talagalay warbaahinta qaranka waa farxad waa guul u soo hoyatay Sntv waan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London